bismillaah raxmaan raxiim kulan waxaana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta walwaal qodobada ugu doorka roona gudaha iyo caalamkaba waxaa qayb ka ah bannaanbaxyo xoog leh oo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo degmooyinka ay bannaanbaxyada ka dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay ee rasmiga ayaa daawan doontaan xilli dad shacab oo aad u badan oo ka caraysan xukunka madaxweyne farmaajo ay maanta isugu soo baxeen magaalayaasha waaweyn ee magaalada muqdisho xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay diyaar u tahay in ay dib u eegis ku samayso guddiga doorashooyinka oo xilligani uu muran xooggan uu ka taagan yahay xildhibaan mahad salaad oo madaxweyne farmaajo ku dhaleeceeyey rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho ee dadka shacabka ay ku dhinteen xilli laga cabsi qabo in dagaal sokeeye uu dalka ka bilowdo ku-xigeenkii duqa caasimadda afghanistaan oo qarax miino lagu dilay kooxda boko xaraam oo markii ugu horraysay qiratay inay afduubteen carruur iskuul laga dhex qafaashay qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan ee ku soo dhowaada warkeennu intaasi ka faahfaahsan daawadayaal aan ku bilownay dadka ku nool gobolkan banaadir ayaa saaka ku soo toosay ciidan booliis iyo militari ah oo xiray qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho waxaana la diidanaa gaadiidka dadweynaha kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo gaadiidka wada carruurta iskuullada dhigata halka goobaha qaarna aan loo oggolayn dadka lugaynaya oo ay ku jiraan shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qaranka xiritaanka waddooyinka muqdisho ee saaka ayaa soo bilowday xalay saqdii dhexe waxaana la sheegay in qorshuhu ah in lagu baajiyo bannaanbax dowladda looga soo horjeeday oo laga abaabulay qaar ka mida degmooyinka magaalada muqdisho qaarkood bannaanbixii ay dowladda damacsanayd in la baajiyo ayaa barqadii maanta si weyn uga bilowday waqooyiga magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka kaaraan yakshid iyo cabdicasiis waxaana meelaha qaar barbar socday isku dhacyo u dhexeeyey ciidanka booliiska soomaaliya iyo kuwa militariga ah bannaanbaxayaasha saaka isugu soo baxay waddooyinka qaar ee muqdisho ayaa watay boorar ay ku qornaayeen erayo lagu diidan yahay madaxweynaha wakhtigiisu gabaabsiga yahay ee maxamed cabdulaahi farmaajo laguna dalbanayay in la qabto doorasho wakhtigeeda ku dhacda oo lagu qanacsan yahay qaar ka mida dadkii bannaanbaxa dhigaya ayaa warbaahinta la hadlay waxayna faahfaahin ka bixiyeen sababta ay u soo abaabuleen bannaanbaxan waxa ayna cabashadooda ku saleeyeen in madaxweyne farmaajo uu doorashada uu qalqal siyaasadeed uu ka abuurayo 20 sano kadib doorashada Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya ayaan laga weyneyn ku taagnayn kadib markii ay circirtay oo maalmihii ugu dambeeyay muran xooggan uu ka taagnaa arrimaha doorashooyinka goob joogayaal ku sugan degmada Yakshid ayaa warbaahinta walwaal u sheegay in isku dhacyo u dhaxeeya ciidanka ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo kuwa militariga uu ka dhacay isgoyska Fagax waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 qof si kastaba ahaatee dadka inta badan oo gorfeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in siyaasadda Soomaaliya aysan caga badnayn xilligan ku taagnayn maadaama madaxweyne farmaajo uu ku adkaysanayo in gudiyada doorashooyinka ay sidooda u sii joogaan isagoona ka dhiga adeegaya baaq iyo waliba hadal kasta oo ka soo baxa mucaaradka ku shiraya magaalada muqdisho xisbiyada mucaaradka ayaa magaalada muqdisho waxay ka abaabuleen bannaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dowladda dhexe ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo wakhtigiisu xilligan uu yahay mid gabaabsi ah waxaana u dhiman 59 maalin oo qura madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu dalkan ka qabto doorasho lagu qanacsan yahay balse doorashadaasi ayaa noqotay mid ay gadood ka qabaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka iyo waliba qaar ka mida maamulada xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo socdaal ku tagay deegaanada maamulka Puntland ayaa ku soo guul daraystay wada hadal uu la lahaa madaxda ugu sareysa Puntland iyadoona la sheegay in ra'iisul wasaaraha socdaalkiisa laga hagayay filla Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaana gabi ahaanba waxa uu ku soo guul daraystay wada hadal ku soo dhamaaday bilaa afgarad la'aan oo ka soo bilowday Puntland kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani iyo ra'iisul wasaare Rooble waxaana la sheegay in kulankaasi uu miradhal la'aan ku soo dhamaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoro ayaa waxa uu xalay kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha kulankaasi ayaana waxa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka si kastaba ahaatee siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan ah mid circiraysa oo aan ku taagnayn caga badan
kadib markii dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba ay xiriirka u jirtay dowladda Kenya taasoo lagu saleeyay in ay qalqal ama faragelin ay ka wado gudaha dalka Soomaaliya iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay 24 saac ama 15 bishan aynu ku guda jirno oo ku ekeed maanta shaqaalaha Kenya u dhashay ay ka baxaan gudaha kuwa kale ee u dhashay dalka Soomaaliyana ay ka soo baxaan Kenya oo dalkooda ay dib ugu soo laabtaan xiriirkaasi ayaa waxa loo saleynayaa faragelin ay dowladda Kenya ku wado arrimaha gudaha gaar ahaan doorashooyinka madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa dhawaan waxa uu tagay magaalada Nairobi caasimada dalkaasi Kenya isaga oo kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta waxaana uu kala hadlay xiriirka labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Kenya ayaa waxa uu sheegay ama beesha caalamka uu ugu baaqay in Somaliland loo aqoonsado dal madax banaan oo ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale isagoona sheegay in ay tahay wadan isku filan sida uu hadalka u dhigay doorashada Soomaaliya ayaa xilligana mid aad u circireysa maadaama siyaasiyiin badan ay maalmahan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho kuwa kalena la filayo inay soo gaaraan maalmaha soo socda gudaha caasimada kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ayaa odayaasha dhaqanka kal hore waxay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ayna uga hadleen xaaladda kala guurka ah ee dalka iyagoo madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in uu dalkan u horseedo doorasho lagu kalsoon yahay oo dadka dhan ay ku qanacsan yihiin balse baaqaasi iyo qeylanaanta ka soo yeeraysa odayaasha dhaqanka ururada bulshada iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka ayuu gabi ahaanba uu dhagaha ka furaystay iyadoona ugu dambeyntii maanta banaanbax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo uu ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu xilka qabanayay waxa magaalada Muqdisho ay la circireysay farxad iyo reereyn ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha haatan talada haya ee waqtigiisu uu sii dhamaanayo balse hadaladii madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaanba noqday kuwa isku bedelay in ay dhiig ku daato kadib markii maanta dad shacab lagu dilay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka socdeen banaanbaxyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo qoraal kooban ka soo saaray banaanbaxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sida ay uga jawaabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu haatan ka qoostay in kursiga uu ku sii raadiyo si nabad ah xildhibaan Mahad Salaad ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in shacabka dhigayay banaanbax nabadeed loo adeegsado rasaas isaga oo sheegay intaasi ay ka turjumayso sida madaxweyne Farmaajo ay uga go'an tahay inuu doorashada boobo sida uu hadalka u dhigay shacabka sacabooley ah oo si nabad u banaanbaxaya in lagu jawaabo dabameyshaar BKM Dishike iyo Baasuke RBJ ah waxay ka turjumaysaa in Farmaajo ka qoostay in kursi uu ku heli karo xeelad iyo xidxidasho siyaasadeed una jahaystay inuu wax ku goobo boob bililiqo iyo dhiig la daadiyo ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook sidoo kale xildhibaanka ayaa tacsi u diray ehelada iyo dadkii shacabka ahaa ee waxyeeladu ay ka soo gaartay shaqaaqooyinkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ka qayb galay kulan looga hadlayay qoondada haweenka ee doorashooyinka ayaa ka hadlay arrimo la xiriira doorashada dalka iyo cabashooyinka ay qabaan dadka mucaaradka ee ku shirsan magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay diyaar u tahay in la xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhanka xukuumadda si dalka doorasho uga dhacdo taasoo lagu wada qanacsan yahay Mahdi Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada inay fuliyaan heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada Muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay dib eegis ku sameeyaan gudiyada doorashada ee muranka laga keenay si loo xaliyo tabashada ay qabaan musharaxiinta iyo dadka ka aragti duwan dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale musharaxa madaxweyne Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa eedeyn kulul waxa uu jeediyay madaxweynaha waqtiga xilhayntiisa ay sii dhamaanayso ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo musharax Daahir Geele ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in madaxweyne Farmaajo siyaasiyiinta uu wax ka maqli waayo balse
faragelinta dibadda uu wax ku maqlo sida uu hadalka u dhigay mudane madaxweyne xuquuqdeenna siyaasiga ah in aan kaa weyno islamarkaana aad wax naga maqli weysid ee aad faragelin dibadda ah ku maqasho waa wax laga xumaado ayuu yidhi daahir geelle waxaana uu madaxweynaha ku eedeeyey in arrintaasi ay tahay mid lagu xumaynayo siyaasiyiinta ka aragti duwan dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana uu sheegay intaasi ay daliil u tahay in doorashada Soomaaliya ay tahay mid boob ku socota ku-xigeenkii gudoomiyaha gobolka Kabul ee caasimada u ah dalka Afghanistan Maxbuubullaahi Maxamed ayaa ku geeriyooday qarax miino oo wadada loo dhigay xilli uu shaqadiisa u socday gudoomiye Maxamed ayaa sidoo kalena ahaa ku-xigeenkii duqa caasimada Kabul waxaana lagu qarxiyay meel aan ka fogeyn xafiiskiisa mas'uuliyiinta ammaanku waxa ay sheegeen in miinada lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka caasimada Afghanistan ay ahayd mid dhulka la sii geliyay kal hore qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo xoog hayntiisa gaarka ah ayaa sidoo kale qaraxaasi ku geeriyooday dhowrkii cisho ee la soo dhaafay ayaa dhowr weerar oo ka dhacay caasimada Afghanistan waxa ay dhaliyeen khasaare nafeed oo kala duwan ugu dambeyntiina daawadayaal kooxda Boko Haram oo ka dagaalama dalka Nigeria ayaa sheegatay in ay iyagu afduubteen arday boqolaal gaaraysa oo toddobaadkii hore ee laga qafaashay iskuul ay wax ku baranayeen oo ku yaala waqooyi bare ee dalkaasi Nigeria cid uu soo duubay hogaamiyaha kooxda Boko Haram Abubakar Shiiqu ayuu ku sheegay in dagaalamayaal ururkiisa ka tirsan ay gacanta ku hayaan carruurta ardayda ah waxaana uu intaasi ku daray in ay gacan amin ah ay ku jiraan hogaamiyahan ayaa waxa uu xusay in ay ka qafaasheen ardayda magaalada ka tirsan ee waqooyi bari Nigeria ay u adeegi doonaan shareecada sida uu hadalka u dhigay isla kooxdii 2014 magaalada Chibok ka qafaashay gabdho arday ahaa ayuu sidoo kale sheegay inay afduubkan geysteen ilaa iyo 300 oo carruura ayaa ku jira gacanta kooxdan waxaana ay dawladdu sheegtay inay wado howlgal gaar ah oo lagu doonayo in carruurtaasi lagu soo furo guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta walwal xiligan waa naga intaa fadlan haddaad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar siina share garee si waxyaabahan halkan soo gelina ay ku soo gaaraan adna waad ku mahadsantahay daawashada warkeena iyo sida aad noola socotay